Inkaartii Manchester United oo halkeeda kasii socoto waa ciyaartii labaad oo Manchester United oo haddana barbar dhacdalaan ciyaartii koowaad ee horyaalka lagu furay isbuucii hore garoonkooda Old Trafford ayaa 1-0 lagu qaraacay waxaana ku qaraacday kooxda Arsenal halka maanta la filinayay Manchester United ciyaartooyda macallin Falskooda dhahay faaq ciyaarta Arsenal inta dhiilay ciyaaraha dambe waan badinaynaa hadda ka xaabiyahay waxay heleen fursado inkastoo half time hore ama qaybta hore waxay heleen fursado taasoo fursadahaas Runya oo 3 darbo oo abuuray oo nasiibka diiday halka ay duulfulaad ay heleen duulfulaadkaasna waxa ka qasaariyay Bruno Fernandes maxaa shibraha mutooganaya kor ayuu martay inkastoo uu rabay inuu dhaliyo ciyaarahan walba wuxuu rabay inuu gool dhaliyo laakiin nasiib wanaag birta korkeeda ayuu mariyay darbadaas fursadaas uu ka qasaariyay marka Manchester United waxa uu meeysan Warkin inkastoo ciyaartu wali xilli hore ay ahayd qaybta hore isla qaybtii labaad ayaa markii la isku soo laabtay qaybtii hore ever ayaa lagu talastay qaybtii labaad ay Manchester United ayaa baloon ay toorna ay soo turteen ayaa Yura ayaa madax ku tuuray inta soo difaaca weeraryahanka Tottenham Fulham weeraryahanka Fulham ayaa Andrew iska dhaliyay halkaas oo goolkaas Andrew loo soo qoray inuu iska dhaliyay tusii dhacday Manchester ayaa difaacan kartay goolkaas laakiin balse coachkooda Amrion wax laga weydiiyay Sky Sports wariyahooda wax ka weydiiyay ciyaarta ay hal gool la hormaray ayaa haddana si manaad wuxuu dhahay anaga natiijo ma fiirin waxaan fiirnaa performance garoonka macna maxuu difaaci weysay qiil kale iyo waxyaabo kale ayuu raasiday laakiin Manchester United ayaa dhibaatadeeda ah in ay qadka dhexe u baahan yihiin sidoo kale duulahayo laakiin duulahayo waxa ka daran qadka dhexe maadaama Casemiro uu yahay nin da u yahay wuxuu baahan yahay ciyaaryahan kale cusub ilaa laba kale oo qad dhexe ah oo mid baloon abuurayo iyo mid oo burburi ah laba sidii waa burburi ay u baahan yihiin marka Manchester United ayaa ciyaartii halkaas gool ay la hormartay balse Fulham ayaa iidan ka biididay isla daqiiqada cabaar kadib waxa goolkooda u saxiixay weeraryahankii hore ama qadka dhexe hore ee Arsenal Smith Rowe halkaas oo isla weeraryahankii hore ee Arsenal Wabi ayaa Fulonta baala ka soo xarooday baala ayuu soo cantuway soo crossay halka Smith Rowe uu taabtay uu taabasho bas ay u baahneed laakiin halka difaacyada Manchester United ee Fulonta isla fiirsan isku daayeen ay asan ka dhafaa'idaysan goolhaya oo qabsanin ayuu ka taabtay taasoo shabaqa ku hubsatay ciyaarta ayaa cirka isku shareertay taageerayaasha kumanaanka kun ee Fulham ee garoonkooda lagu martay loogu ahay ayaa u banaan baxay aad u dabaaldegay halkaas oo fursado kale si abuuran laakiin Manchester United ayaa qaybta hore fiicneed oo kaliya laakiin qaybta labaad waxa uu muudaawo in baloon haysashada iyo dhaxda in laga qabsaday wili Manchester United waxa daba taagan Arsenal sababtoo ciyaarta Arsenal ayaa ka badisay haddana Arsenal ayaa baraajisay because maadaama weeraryahannadan hadda ay baloomaha abuuray ee Fulham indhaha ku hayaan oo maadaama ay baloonta midna labadaba burburi yihiin ay baloomaha dhisayaan baloomaha abuurayaan oo lagu xisaabtamo ayaa haddana laba ciyaaryahan hore ee Arsenal ayaa Manchester haddana ku adkeeyay ciyaartii ayaa intaas ku soo idlaatay 1-1 Fulham 1 Manchester United 1 marka saas ay ciyaartii ku soo idlaatay 1-1 laakiin waxa laga baranayaa Manchester United oo rajadooda ay ahaayeen inay dhaheen sida kabtankooda Bruno Fernandes ayaa ciyaartii Arsenal kadib markii ay ciyaarta laga badiyay wuxuu dhahay weeraryahannadan cusub ee dadka aan soo saxinay sida Mbowa iyo Idunya waxay noo dhiirgelinayaan inaan horyaalka hami ayeen dhilanaa horyaalka guuleysano maxay horyaalka guuleystaan haddii Manchester United sanadkan ay kaalmaha sare soo gasho ay afarta kooxood u horeyso ama hatta Europa League soo aaday nasiib leedahay wax kale iska dhaafay sababtoo Manchester maanta ibri ma ka soo kaban doonto waxay u baahan tahay waqti dheer iyo soo dadaal ay u baahan tahay maadaama hadda weerarka soo dhistay laakiin waxa loo baahan yahay qadka dhexe iyo goolhaya cusub oo qabiir ah inta suuqan u furan yahay dhowrka maalmood ka dhiman yahay inay ka faa'iideysan haday ka faa'iideysan waayaan waxay noqonaysaa ilaa January Manchester United waa iskisii babacsanay kooxaha yaryar batanka u dambeeyo oo relegation hata oo badana aadan kuwaas Manchester United waabsan doono oo garoonkooda iyo abeehdi aadaanba barbarac mar la geliyo mar laga badiyo hadootan wuxuu dhigi doon coachka aan performance fiirnayna macna ciyaarta ay haysasho la fiir meesha haysasho wax la ma jiro sheekh waxa loo baahan yahay in ciyaarta in ay wax ka bedeshaan Manchester United waa inay wax ka bedelaan haddii saabtu socdaan bis weeraryahankii ay soo dhateen inkastoo cusub yahay bedel ay lagu keenay
Manchester United ayaa u baahan inay wili suuqa ka faa'iideystaan sida wariyaasha ay Sky Sports sheegeen waxay ku andacoonayeen in Manchester United ay u baahan tahay qadka dhexe maadaama Casemiro uu yahay ciyaaryahan khabiir ah laakiin balse uu yahay nin oo da' uu yahay oo si cuslaanayo maadaama wuxuu u baahan yahay ciyaaryahano oo khabiir ah oo fudud oo da'dooda yar inay ku soo xoojistaan qadka dhexe intaas waa ciyaaraheena haddii intaas soo darto walaal waxaan ka codsanaa muuqaalka like noo saar subscribe noo saar nagu dhiirigeli si aan marar badan wararkeeda taxanaha ciyaaraha oo joogtada inaan soo dhilno waana mahadsantiin